وركده سبحانك يا عظيم حجر الأسود كيف متين إنه كان ينقاركود برارجنت واحد تاي نبي إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحو كل شيء سنة يفعل الحمدين سنة أنا كوا حكاء إلا يستعبط إلا يسأجا اللهم صل على محمد إلا يسقون كذابا هرنا على السنة ذي كم يطاع آيات القرآن كيكو عطاي ولا تقربوا السنة علماءكم عن وحويان هو دوانين وحي كيني يا كوب النية إنا يروح النبي أما كايرة أما كل جاتبه إن الله بتكون تسو برجنت أطوحت هاي dhalinyarada waxaan aynu uga qaylinay waxay ahayd waa la jaasayaayo waa la isku yimid oo rag iyo dumar baa isdhax galay bal hada halkan inta dunuub ay ka socoto oo fiirso hablihiiba heesaya rigi waaweyna cirowga meesha fadhiya miisi baa la garaacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waa la caasi wuxuu nabigu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam dadka sida dhaxdooda ay xumaanta uga soo ifbaxdana saddex calaamad ku dhacda in dhulka lala gooyo oo gabigoodaba la waayo ama in suuradoodii la bedelo oo dameer iyo doofaar laga dhigo dad badan baa u baahan in dameer iyo doofaar laga dhige iyo in cadaab samada laga keeno gantaal inuu gurada kaga soo dhaca ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ayay kamid tahay gantaal inuu gurada kaga soo dhaca ayaa laga yaaba waxa kale oo aad la sii yaabasa ragaas xataa rag roori karaya ma haba rag dhalinyaro yaaci kara hada wax ku soo dhacaan ma rag baa leedka loo shidaa gurigiisa marka toga 12 doornimo oo midba arkayn gurigii fadhigii aan kala arkayn iyo Allahumma salli ala maxay kii hurdada wixiyay ده هلك اللي جاري وين إخواني في الله وحين ليناي مركو قف وده جارو حمان قف في كتاجرة استجا أي أطلع يوم القيامة استجا أنا كتوابية إلهي أكتي سنة هذا كهر أورنطونا وارد بوجه هذا بتحصل سرده تدكوا يطلع يرضى وحين لينا إذا طلع إلى الشر وحكى لنا لينا جيل تغدي سدردور سأرن كيس محاضر ملاين ورد اللي يرتوي سنيستان لما الحين حاشاك الله wadaad iyo waran loo 18 weynu ka qaylinay ragii ugu hor hadlay ana kamid aha geel duqdiisa durdurisay aarankiisa maxaad u malayn odayaasha waaweyn waxaan sameeynaya haddaan waxba loo sheegin oo aan shaqo laga qabanin dhalinyartii maxaa lagu oranayaa soo ma ogid inaan ka yara inaan dhunkada iyo odayga weyna inaan dhunkada inuu ka dambi weyn odayga weyna inaan dhunkada soo ma ogid inaan ka yara inaan isku dhajiyo iyo odayga weyna inaan isku dhajiyo inuu ka dambi baday odayga inaan isku dhajiyo haddii aan odayaasha nooca sameynaya runta loo sheegin waxba laga qaban oo wasaaradda diinta oo qaafta ayna shaqadeeda ka qaban oo aanay Allahumma salli ala Muhammad gudida wanaag fariisto ayna sideeda uga hadal dhalinyarada wajin lagu hadla meesha ma yaalo baraarujintu waxay tahay qofku goor u dhiman Ilaahay baa garanaya aakhirul imri odayaasha taagan ama caaqilda ama siyaasi ama ku doonaba dhaw gabadh ka ajnabiya dhunkanaya ama xijsanaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yaabo waa cirro khasaartay soo maqli jirin الرخا صارتي حطاد مقشو كان لفتجي سوي كاسون بيا اسمرين كان لفتجي سويا الرخا صارتي حطاد مقشو ونوين وعمر جام مريا وهالكو دتك وناك يقدر دارن يحمان وغرابة وبسي فائدين لها عدد عسر شوك تويين عدد عسر شوك تبحلو يقانا إنا دعضو شانتا كلامنو هذا عادي ممكن قاعدو وحين لقى إيجا وين دعضو براروجين تين واحد هاي إننا قوم قف قارة وتشيدين واجبك إن صارنا جذنينا in alla iska ilaaliyo dhaqanka noocaas ee waalidiinteenu ay sameynayaan dhalinyarteenu ay kaga Allahumma salli ala Muhammad ay kaga daba dhaqmayaan hadii ay waalidiintu ay waxa iska ilaalin waayaan dhalinyarta wax la yiraahdo ma jiro mid qodobka kale ku sii daray waxa weeye iyaguna waxa jira dumar la qabo oo iyaguna xafladaha noocaas imanaya xafladaas ama buuqa lagu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo Allahumma salli ala xaflad kale la qabtay ahaado ama wax kale la soo diyaariyo iska ahaado dumar la qaba imanaya dumarkaas ay ragga geedada saarayaan kii qabay waxa laga yaabaa inuu meesha joogo ama uu TV ka daawado hadhow ceeb tacaala weeyaan ilaahay dumarka wuxuu faray saddex inay ilaaliyaan ninka inay gurigiisa u ilaaliso naftiisana ilaaliso ciyaalkiisana ilaaliso intaas dumarka la faray inay inta ilaaliyaan intii gabadha hadii ilaalin weydo mustaxaq waxa uu yeelanaysaa in la sii daayo oo la furo oo safarha laga qaado marka ceebtan iyaanay dhexdeena ku baahin qofba qofku ka weyn yahay uu ka dambi badan yahay ama wadaad ha ahaado ama caaqil ha ahaado ama sultaan ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama wuxuu doono ha ahaado ama anigayga ha ahaado waajibka in saaran waxa weeyaan intaynaan dhalinyarada ka hadal inuu dadkeena waaweyn in wanaajino Ilaahina subhanahu wa ta'ala khayraadka ina waafajiyo